أنا دوّي مركب أنا دبعت سنيد بنا البير كده مقنع ودين تو ولا قشمة ونولي يسمع هاي داود يار هذا نشلي halkeen igu soo gudbinay waraan farxad lahayn iyo sidoo kale baaqan ku baaqanay in baadi doon la galo maanta waxayni wadnaa warka cakiskiisa Cabdiraxmaan Yare oo shalay la baafinayay nasiib wanaag waa la helay bal habkii loo helay iyo marxaladihii loo maray helida wiilka yar hooyadii dhashay ee hadda igala sugan oo joogii shalay joogi ka dugan ku sugan ugu horreyn bal hooyo sidee wiilkaaga loo helay wiilkayga waxa loo helay horta gurmad badan baa ay baxay macallimiin iyo maamul iyo culimo badan iyo ummadii Ilaahay ii diray xaafadii la deganayd dad badan baa ay baxay anagu shalay waxaan carcararnay meelahan dooxyada iyo dhulkan mikrofoon meel saaro baafin saara meenan garanay waxna waxaan ku saarnaa maan haysan deedna haba say haatay macallimiintii madrasada Daarul Hilaal iyo maamulkeedii iyo culimadoodii ayaa kacay waxay dooneen TV-ga iyo media waxay dooneen iyo baafinta wixii la saaray gaariga baafinta laba gaari bay soo kareeyeen baafintii baan saarnay waan wareegnay meel kasta lambarka iyo xilba lagu daadiyay TV-ga laga dubay haba say haatay markii laga dubay Ilaahay uu noo soo dhaweeyay meel walba oo marnay saldhig kasta waan tagnay meel kasta markaan tagnay ugu dambeyn waxaan ka soo helay saldhiga in la yiraahdo Macallin Haaruun helay saldhig wuxuu kiyo socod ma helay on qabtay kadib waan hayay habeen horeba waan siixiyay bunugu maamulaha Daarul Hilaal ayuu qof la soo hadlay wuxuu ku yiri in astaanta la raadinaysan anaga hayna halkaas uu joogay oo doonta bunugu teedna maanta farxadeeda aad iyo aad ma koobi karayo aad baan waxaan ku intii ka qayb qaadatay macallimiin iyo maamulba iyo sharafta xaafadda la degan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro dareenka aad iyo aad lama soo aad baan faraxsanay hooyo markii hore dhibaatay sneed baan beerkeedu maqnaa uu dhinto wala qashimo uu nool ismaan lahayn imkana wallahi bilaa aad iyo aad baan faraxsanay dhankiisa Fuad Maxamed Nuux maamulaha dugsiga Daarul Hilaal ee xaafadda Istaad Hooska oo dadaal dheer iyo galiyay baadigoobka wiilkan yari kaas oo aan hadhiya habeen ka nasan doondoonka wiilkani ayaa dareenkiisa nala wadaagay helidda wiilkani kadib runtii anigu maanta waan faraxsanahay farxad aan la soo koobi kareynin waxaan ku faraxsanahay runtii hawshan u dhaqaaqnay iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo noogu suurta galiyay alxamdulillah waa fadli Ilaahay ma aha fadli anagu leenahay Ilaahay baa fadligaana siiyay Ilaahay baana nagu naxariistay Ilaahay baana nagu asturay alxamdulillah dhalika fadlullahi yuutihi man yasha Ilaahay baa fadligaana siiyay walaalayaal waxaan dhammaan u mahadnaqayaa ummadii sharafta lahayd ee karaamada lahayd ee ciidada lahayd ee u kacday wiilka yar ee halka taagan ay da'diisu tahay 7 jir waa ilmo yar oo soo koraya oo ubaxeena hooyadaas uu ka maqnaa 2 cisho iyo wax ka badan buu ka maqnaa oo runtii raadinaysay intii taalkeega laakiin ayna cid la ogeyn shalay News TV Allah khayr hasiyo waa TV firfircoon waa TV dadaalaya Allah barakeeyo leenahay anagu u ducaynayna TV-gaas warbaahintaasi shalay markiiba halkaas noogu timid walaal markaasi maantana waanu faraxsanahay shalayna ooyin bay noo ahayd maantana farxad bay noo ahayd waana adduunyada oo waa labadaba laga helaa waxaan ka ugu mahadnaqayaa culimada waaweyn oo ugu horeeyo Sheekh Aadan Siiro oo runtii xalay markii aan waraaqdayda u gudbinay haddiiba la hadlay TV-ga qaranka cid kastana u horgeliyay la hadlay ciidanka damdamiska oo amar ku siiyay inay ka baaraan ciidankina markii ay baareen runtii maxataa ciidanka damdamiska ayaa u kacay looma kala hadhin waxaan kaloon u mahadnaqayaa oonan iloobaynin ciidankii gacanta ku hayay saldhigii lagu hayay Macallin Haaruun runtii aad baan ugu mahadnaqayaa ilmaha yar sida quruxda badan oo hayeen xataa way seexiyeen xataa bustay siiyeen xataa cashadii siiyeen runtii waa ciidan tababaran waa ciidan akhlaaq leh waa ciidan dhisan waa ciidan diintu ay ka muuqato iyagana waan u mahadnaqayaa ciidankeenuna way dadaalaan Somaliland waa han noolaataan u leenahay Somaliland guul bay gaadhay guushay gaadhayna Allah ugu wadan leenahay meel kasta joogtana amnigan Ilaahay inuu siyaadiyo walaalayaal anigu ilmahan yar waxaan ahay maamulaha madaariska Daarul Hilaal waxaan baadi goobay shalay abaar marka saacad oo ahayd kowdii ayaan hawsha galay Ilaahay waa igu asturay 12kii habeennimo ayaan ka soo helay saldhigga aan sheegayo Macallin Haaruun halkaas telefoon la iga soo wacay kadibna markii waxa lagu dhimay waa la hayaa
alxamdulilah ilmihii waan ku soo guulaysanay ilmihiina waa xilligii baan soo qaadnay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa walaalayaal anigu maanta halkan waxaan ugu soo qaaday ilmaha yar iyo hooyooyinkii iyo ehelkii kutub qur'aan ayaan guddoonsiinayaa waxaanan u soo qaaday 4 kitaab oo 30 juz oo qur'aanka waxaanan ku wareejin doonaa hooyada oo carruurta ay ku dhigan doonaan qur'aanka insha Allah tacaala hooyadaasi allaha barakeeyo qur'aankaasi ha ugu dadaasho waa 6 carruura 6 carruura 4 sano timka u keenay inta kalena insha Allah tacaala waan u keeni doonaa anigu waxaan u damaanan qaadayaa inaan kan yar ee ilaahay barakeeyay ilaahay xalay ugu asturay inaan hawshiisoo dhan qaabili doono hadday tahay waxbarashadiisa hadday tahay diriisku xidhanayo hadday tahay iskuulka wuxuu iskaga bixinayo hadday tahay hawl kasta oo inankaas ku silaysan xataa iidiisa xataa wax kasta u baahan yahay anigu maanta ayaan ballan qaadayaa waana la wada maqlayaa arrinkaa waan ballan qaadayaa arrinkaa waxaan ka sheegayaa inankaasi xataa hadduu dhakhtar u baahdo inaan anigu ka qayb qaato qaybta ugu weyn aan ka geysan doono waxbarashadiisana aan qaadi doono maanta laga bilaabana aan qaadayo waxbarashadiisa waxbarasho dambe oo ugu warwari doonto xataa macad xataa jaamacad hadday ilaahay intaa idaayo inaanan ugu warwari doonin isagoo aqoon leh oo anfici doono waalidkiisa uu ku iman doono insha Allah tacaala madrasada Daaru Hilaal runtii xaafadan mar horena qayb ay ka qaadatay oo ciyaalka dhiganaya ee guriga 6 ciyaal ku hayso 3 kamida iskuul bay u geysay si bilaashana loo qoray waxana loo geeyay wax diriiskii iyo wixii kale xidhanayeen laftirkeega ku caawisay xataa buugaagtay ku caawisay madrasadu waa madrasad ka shaqeysa danta xaafada ma kama shaqeyso dan ayadu leedahay laakiin hal iyo habeenba waxaan u taaganahay habeen kasta waxaanu haynaa hawshaanu hayno ilaahay baa og habeenada qaar baan wallahi runtii seexdaa kowda habeennimo amba labada habeennimo oo gurigayga imaada anigoo daandaana maanta gidina shaqeynay xafiiska madrasada fadhiyay dan gaar iyo dan guud imikana insha Allah tacaala waxaan furi doonaa xafiis la yiraahdo baahida xaafada oo insha Allah tacaala wax alla waxa baahan xaafada sida loo kala sareeyo baahidu ma dhamaatee laakiin dadka qaar aan quraacani baajiroon ognahay dadka qaar aan qadaynimo ayaan ognahay dadka qaar dhibaataysan baan ognahay hawl badan baa nagu xeeran baahi laakiin ma dhamaato umada bini'aadankana baahidu kama dhamaato nabi maxamed baa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam farxadaasi kadib jawiga goobta ayaa mar kale isbedelay kadib markii laga warramay duruufta nololeed ee qoyskani ku gadaaman taas oo aad u liidata gabadhaasi waxyaabaha aad uga naxay waxay tiri dantu waxay igu kaliftay inaan qasaaladaha barto oon ka shaqeeyo runtii wallaahi arrinkaa markaan arkay aad baan uga ilmeeyey waana ka naxay qof runtii 6 ciyaal haysta oo Hargeysa maanta ku nool caasimadda aragteen oo runtii duruufuhu ku xeeran yihiin baahiyuna ay ku xeeran yihiin dareemi karaan walaalayaal hooyadan oo haysata 6 carruur ayaa waxa hooyo aqoon yar oo kira ku ah waxaana ay maamulka dugsiga Hilaal oo hooyadani si mutadawacnimo ah ula shaqeynaya iyo qaar kamid ah dadweynaha xaafaddu ay ugu baaqeen dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadan karta caawinta hooyadani inay soo caawiyaan hadday ahaan lahayd inay ku caawiyaan quud maalmeedka la quuto iyo haddii ay ahaan lahayd inay ku caawiyaan helidda hoy kan dhaama walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa madax iyo mijaba keena ugu yar keena ugu weyn haddaynu isku darno $1 wax kale iska daay $1 haddaynu isku darno Hargeysa maanta intaynu 2 nin internet war mid walba meherad $1 ka soo qaad waxaan aaminsanahay inaynu dhulna u dhisi karno gurina u dhisi karno waxbarashadoodana ka fala qaadi karno war ilaahay baa inoogu naxariisanaya samada markaynu ilaahay wuxuu yiri nabi maxamed wuxuu calayhi salaatu wasalaam allada dhulka isaga naxariista ilaahay baa samada ka naxariisanaya war intaynu dhulka isaga naxariisano ilaahay baa samada ka naxariisanaya ilaahay ayaa inoo naxariisanaya waxaan leeyahay ganacsatada barakaysan runtii ganacsato waxaanu leenahay wanaagsan oo sharaf iyo karaamo mudan oo runtii waa loo kacaa qofkeen u hadalnaa waa loo kici doonaayo waxaan rajaynayaa in loo kaco oo loo kala hadhine war qofkii wax ku tari kara ee baahidooda in un kafaala qaadi kara hala kafaala qaado aniga ugu horeeyo iska bilaabayo horta inankaanu si awoodeyda inankaa waan kafaala qaadaya
xataa jaamacadiisa xataa macadkiisa xataa wax kasta u baahan iskuulkiisa aniga maanta ka fala qaaday wixii kale aan ku tari kara xaafadana waan ku tarayaa walaalayaal haynu kacno oo yaynaan dad buuran u hadan waxba ka doonini dad yar oo iska fudud hadeen $2 $1 hadeen isku darno anu waxaan aaminsanahay gabadha inaan meel u dhisi karno wallahi inaan meel u dhisi karno oo inaan meel u iibin karno oo inaan caawin karno ayaa wallahi walaalayaal waxaan ka codsanayaa warbaahinta sharafta leh ee karaamada leh in arrinkan noo faafiyaan meel walba kastana loo gaarsiiyo waxaan markaa leenahay waxaan la shaqeeyo ganacsatadeena madaxweynaheena madaxda sare kuwa hoose kuwa dhexe xaafadan baahideeda hoos loo iminka ilmi yaraaba halkan ka ooyay naqnaa ee gabadho mushay inaan waa ka xanuunsanaya wuxuu neefsida ka xanuunsanaya cid qaliin baa la geynaya lacagta ku baxaysa xad bay ka badantay waar inagu ilaahay nagu eegayaa masiibooyinkan iyo karoonahan dhacaya waa gamcaheenan aynu laabanan sadaqada bixin weynee war sadaqada haynu bixin waxaynu qurno qofka sadaqadu waa cajiib nabi maxamed wuxuu alayhi salaatu wasalaam sadaqada waxa iskaga dhigtaan oo iskaga leexisaan jeex timira naarta iska xigsiya bal ilaahay baan kugu dhaariyay timir la kala jeexay maxaa ka yar Allah ka jirto timirtaas ayaan ka joojinaysaa walaal waxaan ka codsanayaa si codkayga loo dhigto soo gaabinayaa barakallahu fiikum waxaan idin ka codsanayaa dhammaan xaafadaasi in la caawiyo xaafadu waa taasoo gurigii waad aragtaan guriga waa intaasi maqsinka waxa ka yar bay gabadhaasi gashaa fadhiga ha looga kaconana cid kasta oo wax ku dhaanta fadhiga ha looga kaco guriga hadii aan eegno guriga gashaa hooyadaasi oo guriga runtii aadka looga naxayo maqsinka inta la gashaa halkan ay runtii wax ku karisaa hooyadu waa halkan wax ku karisaa waa halkan ilmaha yarba ooyay ilmaha yar laams halka ku karisaa waa halkan intay seexataa waa halkaas halku ilmaha yar hurto wad arkaysaa inuu jiifo barakallahu fiikum waxaan idin ka codsanaynaa dadweynaha sharafta iyo karaamada mudan in loo kaco maamadan hooyuhu shalay ka lumay shay gidi raadinaysay hooyo Xaliimo Xasan runtii aad baan ugu wanaxsanahay aad baan u warwarayaa hooyo inta galaysa oo maqsin hatta uu ka yiri hatta maqsin waa ka yiri walaalayaal dhammaan waxaan ka codsanaynaa ummadda sharafta iyo karaamada mudan in xaafadaasi la soo caawiyo qoyskan waad arkaysaan waxa weeyaan maqsinka yar naqan ee waliba tabaruc lagu siiyay iyagu aan lahayn dadka marka reerkaasi wadiga arkaya waxaas u hurdaa waxaas u jiifa waxaas waxaan ku lixiyaal ku haystaa inay yar macaan baa u ka qabaa saacad bay dhakhtarka u geysaa boodan ma hayo nerfaha ina gaar xitaa xanuunaya macaan baa u dheer xaaladda gabadha iyo qoyska ilaahay awood miciin diinin barto ka sheekayn kara waxa jaarka ama ka gudi ahaan ama maxaa dhaayay ka maamulaan aan ku tari karno itaalo jeebadana qof liiba ma jirto qofka haysta waa qofka saddexdiisa waqti yar luudin karaya ka kalna waa siiro